waxaan ku baran doonaa muuqaalkan sida loo qoro scriptiga dark psychology-ga inagoo adeegsanayna AI-ga meesha laga keeno muuqaalada sida codka loo duubo iyo sida loogu sameeyo paper effect dhammaan agabkan u adeegsaday waxaa heli doono qofkii muuqaalkan dhameystaa sidoo kale number ka qabsada 1 ilaa 100 sidoo kale hadaad u baahan tahay in ka badan 500 oo GB oo agabka wax lagu edit gareeyaa oo anigu gacantiisa kugu soo ururiyay waxaad ku helaysaa $5 oo kaliya haddii aad rabto iga soo qabo numberka WhatsApp-ka markaan doonayn inaan qorno dark psychology script waxaan marka ugu horeysa soo qori doonaa fariintan oo dhammaan aan idin soo raacin doono agabkan u adeegsaday muuqaalkan kadib waxa uu ku soo diri doonaa fariinta kale oo waxa uu ka dalban doonaa examples oo script inaad u soo dirto halka waxaan ugu dirnay 5 example oo marka script dark psychology kadibna waxa uu noo analyze gareeyay marka 5 script oo waxa uu noo soo qoray intan kadibna waxaan u qori doonaa ii samee script ka duwan kuwaas oo laakiin dark psychology waxaad aragtaan inuu dhinaca noogu sameeyay script buuxa halkan kalena waxaad aragtaa inuu noogu sameeyay script labaad oo version 2 haddii aad Soomaali u baahatana kaliya waxaad ku qoraysaa translate Somali isaga ayaa Soomaali kugu turjumaya halkaas ayaad adna ka Soomaaliyeysanaysaa haddii aad doonayso inaad Soomaali markaa ku isticmaasho haddaba sidee ayaan u samayn karnaa codka aad moodayso inuu maskaxda la hadlayo waxaan soo gali doonaa website-ka loo yaqaano 11 Labs kadibna waxaan tagi doonaa meesha voice ku qoran tahay marka meesha voice aan tagno waxaan ka sii dooran doonaa meesha ku qoran tahay default voice kadibna waxa aan raadin doonaa codkii aan rabnay codka aan doonayna markaa inuu noo generate gareeyo waa codkan halkan kaaga muuqda kadib waxaad samayn doontaa inaad halkan scriptigaagii aad ku besti garaysato inaad ku dhufato meesha ku qoran tahay generate speech marka waxaad tugi doontaa intuu codka lagu generate gareynayo kadibna halka dollarka ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa hadda saa waxaan ku haysanaa waa scriptiga iyo codkii kaliya waxa inoo dhiman meesha aan ka keeni lahayn muuqaalada okay waxaan imaan doonaa applicationka Pinterest markaan imaano hadda anigu waxaan sii diyaarsaday playlist dhammaan muuqaaladan oo halkan kaaga muuqda marka playlistigan waxaad idin soo raacin doonaa link assets-ka okay marka waxaan samayn doonaa inaan soo degsano haddaba saad u soo degsato waxaad ku dhufan doontaa calaamadda share ayaad ku dhufan doontaa kadibna copy link ayaad ku dhufan doontaa markaad copy link ku dhufato waxaad imaan doontaa ama soo booqan doontaa website-ka loo yaqaano Pinterest video downloader kadibna halkan ayaad ku besti gareyn doontaa waxaad ku dhufan doontaa download waxoogaa yar ayaad tugi doontaa si uu kugu fiiriyo inuu shaqaynayo marka URL-ku kadibna download video ayaad ku dhufan doontaa sidaan waxaad ku haysataa muuqaaladii aad ku aragtay iyadoo la adeegsanaya marka okay hadda waxa inoo dhiman inaan sameyno muuqaalkii editing-ka inagu oo dusha ka taabsanayna hadda waxaan bilaabi doonaa inaan markaa sameyno editing-kii marka ugu horeysa waxaad soo gashan doontaa dhammaan waxyaabada edit-ku adeegsanaysay mar labaadka waxaad soo gelin doontaa codkaaga aad ku soo samaysatay meeshii kadibna waxaad sameyn doontaa inaad dhammaantii wada jarjarta markaa qaybaha bannaan ee markaa dhinaca kaaga muuqda ayaad wada jari doontaa kadibna way isku soo dhaweyn doontaa saasaad ku wada sameyn doontaa codka oo waad isku soo wada dhaweyn doontaa marka ugu horeysa waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaano sound design ma sameyn doonaa sound design-ku waa inaan sound effect-yadii aan markaa hagaajino marka horeysa waxaan soo qaadan doonaa sound effect-ga loo yaqaano razor baan soo qaadan doonaa waxoogaa yar baan soo gaabin doonaa marka waxoogaa soo gaabino waxaan tegi doonaa marka field inkaan tegi doonaa waxaan kasoo dhigi doonaa 2.2 baan kasoo dhigi doonaa kadibna waxaan sameyn doonaa markaa inaan waxoogaa yar socdo markaan waxoogaa yar socdo ayaan soo qaadan doonaa markaa sound effect-ga markaa snapka marka snapka soo qaadano xabad baan markaa kasoo qaadan doonaa oo inta kale waan iska tuuri doonaa oo waan iska jari doonaa kadib waxaan sameyn doonaa markaan xabada kasoo qaadano inaan markaa iyadna aan markaa dhinaca aan soo dhigno markaan dhinaca soo dhigno waxaan soo qaadan doonaa sound effect-ga markaa glitch-kan soo qaadan doonaa oo markaa sound effect-gan ayaan soo qaadan doonaa iyadna waxoogaa yar baan dhinaca dhigi doonaa kadibna razor-gaasaan markaa copy soo odhan doonaa oo isagana dhinaca dhigi doonaa markaan dhinaca idhaahdo markaan dhinaca dhigo kadib waxaan sameyn doonaa inaan soo qaato qosolka shaydaanka oo dhinaca soo dhigo marka qosolka shaydaanka soo dhigo waxoogaa yar baan soo gaabin doonaa halkanna marka waxaan sameyn doonaa inaan fade in aan ka wada dhigo marka halka ugu sareysa kana marka fade out ka dhinaca ugu sareysa aan ka wada dhigo okay
waxaan samayn doonaa hadda inaan markaa soo gelino markaa muuqaaladii aan soo gelino marka ugu horeysa waxaan soo qaadan doonaa waa muuqaalka ma soo qaadan doonaa marka muuqaalkan soo qaadano waxaad aragtaa in hareerahaasi ay bannaan yihiin haddaba saan u xalino waxaad soo qaadan doontaa markaa agabkaad tegi doontaa waxa elements baad kasii tegi doontaa kadibna waxaad soo qaadan doontaa markaa waraaqadan baad soo qaadan doontaa oo dhinaca aad dhigi doontaa markaa kana waad ka saraysiin doontaa waraaqada waad soo dhaweyn doontaa marka waraaqada soo dhaweyso waxaad markaa kusoo dhaweyn doontaa waa shaashadaad kusoo dhaweyn doontaa muuqaalkan waxaad samayn doontaa inaad isagana gaarsiiso 2.3 baad gaarsiin doontaa cabirka kadibna waxaad samayn doontaa inaad waraaqada aad dheereyso marka muuqaaladaada oo dhan ayaad markaa saa ku wada samaynaysaa waxaan tegayaa markaa meesha ay ku qoran tahay library baan tegayaa waxaan soo qaadanaya markaa black screen ma soo qaadanaya black screen-ka markaa soo qaato scale-ka waan soo weyneynaya oo dhamaystiraya maski baan tegayaa armaaskaan ku dhufanaya circle baan kasii dooranaya marka alt baan qabanaya control baan qabanaya mouse-kana hoos baan u riixaya kadibna saas ayaan sameynaya halkana saas ayaan odhanaya kadibna waxaan ku dhufanaya halkaasaan ku dhufanaya oo markaa invert baan ku dhufanaya inuu markaa ku gudiyo kadibna waxoogaa yar oo feather ah ayaad markaa dalici doontaa oo featherka 10 ayaad ka dhigi doontaa markaad featherka 10 ka soo dhigto waad iska soo saari doontaa waraaqadii cadeyd waa iska saari doontaa oo iyadoo hadda wax faa'iido leh inooma laha markaa kadib waxaad samayn doontaa inaad muuqaaladaadi saa ka wada samayso hal mid ayaa inoo dhiman oo ah markaa inaan tegno markaa meesha elementiska oon soo qaadano markaa paper effect aan samayno markaa paper effect waxaan tegi doonaa basic baan tegi doonaa waan soo ballaarin doonaa halkay ku qorantay blend baan tegi doonaa waxaan ka dhigi doonaa multiply baan ka dhigi doonaa marka multiply ka dhigo saas ayuu noo soo baxay Ever noticed how silence can shake someone more than words ever could? Here's the trick. After someone disrespects you, don't explain, don't argue, don't try to prove anything. Just go completely silent. Psychologically, this creates a okay waxaad aragtay in muuqaalku si fiican noo soo baxay dad fadlan muuqaalkan ka shaleeg saar subscribe tana gilaawin oo sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Your silence becomes louder than any comeback.